madaxa caafimaadka guud iyo fayadhowrka iyo sidoo kale nadaafada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Farax Ali Darmal oo wareysi khaas ah siinayay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ayaa ka waramay xaaladda caafimaad ahaaneed ee gobolka Togdheer waa kan isagoo ka hadlaya amurahaasi hadlo caafimaadka guud iyo fayadhowrka gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco saddexdii bilood u dambeeyay haddaan raano ama afartii bilood u dambeeyay updated badan baan ku sameynay kor u qaadid badan baan ku sameynay wax qabad badan baa aad iyo aad noogu qabsoomay roobabkan da'aya iyo haday noqoto xanuunkan kaduudaha la yiraahdo magaalada aad uga cabanayo marka nadaafad ahaanta ama hygiene personalka ahaato ama biyaha meelaha fadhiya ahaato ama kanacadan waxa meelaha ahaato updates badan baan sameynay buufin badan baan sameynay anagoo la kaashanayno toolkan hayso dawladda hoose haddii biyaha laga sii deynayo iyo haddii chlorine lagu shubayo meelaha biyaha fadhiistaan horta caafimaadka guud iyo fayadhowrka iyo nadaafadu gobolka Togdheer aad iyo aad bay u wacan tahay maanta maalin ka fiican tahay ma jirto xanuunkan kaduudaha la yiraahdo waa laga hadlay agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xargeeye aad baa ugu mahadcelinaya isagoo laftigiisa ka hadlay sambalaal la qaaday oo sambaladaasina waxa weeye burcaleeyma digag iyo waxba la qaaday sambaladan ka warsugaynaa dhakhaatiirta wasaaradda ka socotay iyo WHO marka yaa si xoog leh sas looga qaadin emergency preferred wax la yiraahdo gobolka Togdheer sameeyana waa jira meelaha MCH-da ah iyo meelaha isbitaalada ah in la dhigay wax la yiraahdo ama paracetamolkii ama xumajabintii ama nidaamkii waxa jira dhulka uu kala sareeyaa xagan galbeedka uu aad u sareeyaa qashinka la dhigaa iyo biyaha wasaqda booyadaha kuwan waan ka howlgalnay meel dhan oo biyaha lagu shubi jiray booyadaha laga qaado magaalada gudaheeda ama hodheel ha ahaato ama xaafadaha ha ahaato meelaha ayaa lagu shubaa daadka soo qaada magaalada uu hoos keenaa barigana waa hoose biyihii wixii way gaarayaan badana markay xanuun uu bilowda meeshaas uu ka bilowdaa kuwana amar waxaan ku siinay anagoo la kaashanayna gobolka Togdheer oo nin mas'uul joogo Xamse gudoomiyaha Xamse iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayahaba iyo dawladda hooseba oo aan la kaashanay meeshaasi inaan la dhigin wax qashina ama lagu shubin booyadaha xaarka ee ka qaada hoteelada iyo suuqa magaalada bartikeeda Dr. waxa jira imika meelahan xamaamka iyo sidoo kale meelaha timaha lagu jarto iyo waxa iska soo horjeeda goobi wax laga cunay taas miyana caafimaadka wax yeeleen maxaa iyada si u hawlgal weedeen inay wax ka qabataan waarun weeye waa su'aal fiican weeye meesha bulshada ay saxadeeda wax ku cunayso in saxada la ilaaliyo aad bay u fiican tahay way jiraan mana badna waa teelteel weeye laakiin waxaan aad iyo aad uga howlgalnay anaga iyo dawladda hoose meelaha suliyada ah in bulcadan saxarada ku dhacayso oo kale in kiimiko ama daawo lagu shubo oo waxaan ridaqada lana qaado laakiin qof baa ku ganacsanayo markaad u sheegto wuxuu ku leeyahay guriga anaga iska leh waa arin jira laakiin aad iyo aad baan uga howlgalnay محمد يوسف عبد الله محمد وردي تيفيق عالمي Somali Cable Burco